kuwani waa ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo inta aanay qorraxdu soo bixin u jihaysanaya dhul aad u ballaaran oo uu dagaal adag ka socdo. waxay aad uga taxadirayaan weeraro gaadma ah. ciidankan gaarka ah oo uu tababaray una maalgeliyay Mareykanku ayaa sanado badan isku dayay inay burburiyaan kooxaha xagjiriinta ah iyagoo ku jira waqti abaar ba'ana haddana horumar ayay samaynayaan. waxaynu soo gaarnay magaalo yar oo burbursan. dagaalkan oo mar dhow dhacay ayaa la sheegay in magaalada looga saaray Al-Shabaab. waxaan u suurta gashay in aan dilno 60 ka tirsan Al-Shabaab balse intii aysan halkan soo gaarin ayay iskaga carareen magaalada. intii aysan ka bixin waa ay gubeen. waxay burburiyeen dukaamadii, guryihii, ceelashii biyaha. dadkanina hadda ma haystaan xitaa biyo nadiif ah. kani dukaankaagii miya? wuu ahaa, laakiin isbeddelka halkan ka jirahay waa niyadda. ma aanay quusan, laakiin waxa ay go'aansadeen kacdoon dadweyne inuu sii socdo. dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in abaarta Soomaaliya ka jirtahay ay keentay in albaabada kale ay ka soo xirmaan oo ay gacan ka geystaan sidii looga adkaan lahaa xagjiriinta. bishii ugu dambaysay ciidamadani waxa ay qabsadeen dhul aad u badan oo ku yaala bartamaha Soomaaliya iyagoo ku xoreeyay tuulooyin badan. laakiin su'aasha mar walba ay taaganaya ah ilaa iyo intee in la eg ayay sii xajisan karaan dhulkan. Al-Shabaab si fudud ma ugu milmi doonaan dhulka miyiga ah si mar kale ay u laakiin dhegayso, siyaasigan ka badbaaday 5 weerar oo ay Al-Shabaab ku qaadeen. waxaad aragtaa markii la qaadayay. markaa kani waa adiga oo baray la saaran. hadda waxa uu rumaysan yahay in waqtigu uu isbedelay. ma u malaynaysaa intana ay noqon karto isbeddelkii ugu weynaa ee ka dhana Al-Shabaab? waxaan aaminsanahay dawladdu hadday ka faa'iidaysto fursadda inaan u malaynayo in la gaaray waqtigii Al-Shabaab laga adkaan lahaa. kalsoonida ayaa si degdega u sii kordhaysa. dadka ku nool aaggan cusub ee la xoreeyay hadda cabsi laguma maamulo. kor u taag gacanta haddii aad ku faraxsan tahay in Al-Shabaab laga saaray tuuladaada. sidan oo kale ah oo dadku ay ugu dambayntii diyaar u yihiin inay dhahaan waanu ku faraxsannahay inaannu aragno Al-Shabaab oo naga baxday. sababtoo ah waxa ay muddo dheer argagixin ku hayeen tuulooyinka gobolkan ku yaala. sida muuqata dadku waxay ka cabsan jireen in ay hadlaan ilaa laga saaray Al-Shabaab. guushani ma sii waari doontaa? waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya waxa ay wajahaysaa caqabado waaweyn. malaayiin halkan jooga ayaa qarka u saaran macluul, laakiin haddii dagaalku dhammaado waxaa ku xigi kara horumar dhab ah.